farintan waxa iskale wiilkay gabadha qurbaha ku koriyay ku dhashay in abaalka hooyada garanayn wanaaga hooyada garanayn halganka hooyada la martay aan garanaynin ee sanka taagaya iyagoo miiska wax walba loo saaray ee oranaya my mama wasn't there for me I don't think I like her she's so mean she's so rude markay yar kula hadasho whatever markay sii joogtay can you please get out my room qolka meega bixi kartaa adaan kula hadlaya soo dhageyso cumradan jooga waan ku ducaynaya ilaahay inuu ku sugo laakiin farintan adaa iskale abaalka hooyo ma garan kartid anna ma garan karo cidna ma garan karo waayo midka kaliya ee abaalka hooyo garanaya halgankay soo martay jiif la'aanta dhabar xanuunka gaajada walwalka waayo alle subhanahu wa ta'ala isaga waxyi ahaan u soo dajiyay oo yiri wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan hooyo 9 bilood inay caloosha kugu waday iyo waxaad caloosheeda ku sameeynay adu ma garan kartid anna ma garan karo ilaahay ma garan karo sheegay lugahaad gudaha uga garaacaysay 9 bilood hooyo ma seexan karin ma istaagi karin ma jiifsan karin ma fadhiisan karin ma meeydan karin waxba ma karin karin musqul ma gelin karin ma xaajoon karin adiga culeyskaaga qaadi lahayd bal u fiirsa intaas wax ay qaban kartay ma jirin adigay ku siday markay dhalmadaadu soo dhawaatay in lagu dhalana wadamadan waxa la yiraahdaa waxaad oran adigu C-section magac yar baad moodaa C-section ma taqaan waa hooyo oo dartaa loo dooxayo loo qalayo way bal qof bini aadama ka waran oo qof kale dartii loo qalay qofka aniga sakiin igu sara waan la dagaalami lahaa laakiin hooyo dartaaba loo qalay waxa u horeeya rabto iyadoo la qalay oo dhiig baxaysa adiga daankeeda in lagu soo saaro wadnaheeda in lagu soo kor saaro inay ku aragto yaa ugu farxad badan waxaasoo dhibaad geysatay ma aha inaad tiri mami thank you markiibaad oohin bilowday markiibaad waxaad bilowday annoying inaad noqoto markiiba hooyo waxa u biloomay halgan cusub oo 30 jeer maalintii inaad isku xarto iyadoo qalan dhabarku xanuunayo aan kici karin aan musqul aadi karin cunto iyo cabitaan ay isdaayeen walwal iyo xanuun iyo murugo iyo jiif la'aan iyo dawada cun ku dhex jirta ayaa habeenkii hurda waxay u iman daqiiqadaha kaliya hooyo indhaha isku qaban karta ma taqaan waa markay ku aragto adoo jiifa way soo kici alla armo bustaha hoosta iska galiyay alla armo bustaha isku daday qof kale caana inuu ku siiyo hooyo ma ogolo kuguma aamini karto iyada dhahay samay dhabarka waa in la qabto waa in laga daaciyo waa in saa loo qabto saacadan bay ku eegi iyadoo xanuunsan baa markay caanaha ku siiso saasay ku hayni ilaa aad dacdo daac tiraahdo oo haddana ku dhareerto waa hooyo qofkaasi cid abaalkeeda garan kartaa ma jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya way midka abaalkeeda noo sheegay maxaa dhici marka in yar baad kori markaas waxaad orani my birthday is coming up after 5 days haddana waad ku soo noqon you know mommy my birthday is 4 days kadib haddana waad soo noqon 4 days and 6 hours haddana waad soo noqon my birthday is 2 days you better get something for me waxa ii soo gad maanto dhan annoying waxa tahay sanka indhaha hooyo ka galay haye hooyo oran waxbay ku soo gadi waa birthday-geeda la oran waa birthday-giisa sanka taag oh my god I don't like this cake it's not strawberry it's not chocolate maanto dhan baad gunuunicay haddana keegaan rabi ma waxaan rabi ma aha birthday fiican la ima sameyn guriga oo dhan abaa xukuma in yar baad kori driver license baad qaadan hooyo ride inaad siisa ma ogolid paycheck u horeeya aad qaadato hooyo shilin inaad ka siisa ma ogolid in yar kadibna waad guursan waad iska bixi marka yaa garanaya abaalka hooyo waa alle subhanahu wa ta'ala oo markuu ilaahay yiri aniga iyo caabuda ku xijiyay waalidka u wanaagsanow haddana hooyo sii soocay ee yiri waliba hooyo halganka aan ku sheegay kula soo martay ku sheegay yaa garanaya abaalka hooyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo markuu u yimid saxaabiga ku yiri rasuulka ilaahow manaxsana bi husni saxaabati adduunka dadka joogo dhan yaa ugu mudan inaan wanaajiyo nabigu maba fikrin ba qaala ummuk hooyada waayahay yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam markaan hooyo wanaajiyay een boqol jeer dhabarkayga ku xajiyay een lacag ku hurgufay een lugaha waxa weeyaan ka dhunkaday een habi ka dhigay mabsuud ka dhigay ducadeedii qaatay qofka labaad ee ku xiga waayo qaala ummuk haddana hooyo meel kale ma aad ku noqo boqol jeer oo kale dhabarka ku qaad madaxa ku qaad lugaha ka dhunko wax walba yaa rasuulallah haye mar labaad cimrigayga haddana hooyaan geliyay boqol jeer oo kale xajka geeyay paycheegyada dhan baan dhabta u saaray wax walbaan u sameeyay cagahan ka dhunkaday abaalkeedii waan guday bal marka saddexaad yaa rasuulallah wa ayo qofka ku xiga qaala ummuk rasuulka ma fikrin haddana hooyo subhanallah oo bilada koowaad abaalmarinta koowaad bilada labaad abaalmarinta labaad bilada saddexaad abaalmarinta saddexaad the golden global award goes to mommy hooya iska dhicna kuma leh kadib yaa abba laga hadlay qaala abuuk abba markaa ku xiga hooyo wata inta yar ay kula nooshahay hooyo u ducee cumrada gee xajka gee waxbaan kuu sheegi
xalay alxamdulilah ilaahay wuxuu i waafajiyey cumradaan joognaa aabbahay inaan usoo xajiyo ayeydii aabbahay inaan usoo cumraystaan ujeedaa awowo aan usoo cumraysto ayeeye aan usoo cumraysto ilaahay naga wada aqbalo waxaa lagaa rabaa in hooyo markay kaa horrayso sanad walbaad usoo cumrayso aabba markuu kaa horreeyuu dhinto sanad walbaad usoo cumraysato wallaahi abaalkooda si kale inaan lagu gudi karin haddii wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed een ilaahay dartii u jeclahay een ula hadlayo waxbaan kuu sheegi haddii 100 shahaado aad qaadato 100 milyan oo dollar aad samayso laakiin ducada hooyo aadan kasbanin ducada aabba aadan kasbanin waad hoogtay adduun haddaadan xitaa waxba qabsanin laakiin ducadooda aad qaadatay wallaahi waad liibaan diinta inoo sheegtay ilaahay subxaana watacaala cumraan joognaan waa idiisoo wada ducaynaynaa inuu ilaahay awlaadda inaga ina xifdiyo fadlan hooyay aabbaha la wanaajiyo janaalkana follow iyo like dhaha waalid legacy janaalna booqda wasalaamu calaykum waraxmatullah